shaqaalaha dawladda hoose ee Hargeysa iyo mas'uuliyiinta dawladda hoose ee Hargeysa ayaa waxay olole nadaafadeed ay ka bilaabeen gudaha gobolka Maroodijeex ee caasimadda Hargeysa. Ololaha nadaafadeed oo ujeedkiisu uu yahay sidii sare loogu qaadi lahaa bilicda caasimadda. ugu horeyntiiba waxaa bilaabay ololaha nadaafadeed mas'uuliyiinta dawladda hoose, maamulka waaxda bilicda caasimadda iyo maamulka gobolka Maroodijeex iyo shaqaalaha dawladda hoose ee Hargeysa. ugu horeyntiiba waxaa goobtaasi ka hadlay Abdiraxmaan Caydiid Solteko, maayirka caasimadda Hargeysa, Cabdicasiis Cagaweyne, maayir ku-xigeenka barasaabka gobolka Maroodijeex, Jaamac Xaaji Axmed iyo xoghayaha waaxda bilicda ee dawladda hoose ee Hargeysa, xoghaye Khadar. Dhammaantoodba ay goobjoog ka wada ahaayeen ololaha nadaafadeed ee laga bilaabay caasimadda, iyagoona xusay faa'iidada ay u leedahay shacabka iyo weliba caasimadda. ololaha nadaafadeed waxaan hooyadii ku sheegnay waa ololihii waa bilaabmay, maalinba waxa la geli doonaa meel. saaka waxaan ku bilownay 150 oo ay yaaleen qashin hoos gaadhay ahaana dadkii laga helay halkan, iyadoo halkan 500 oo qoys laga helay. waxaan leeyahay dadweynaha qof kasta soo qashin soo dhiga wado waxa la tiigsan doonaa maxkamad. waxaan leeyahay dadkii halkaas soo dhigi jiray, waxaan leeyahay qofkii loogu qabto maanta waa la kala geeyay, waxa lagu geyn doonaa maxkamad haddii Ilaahay yiraahdo. waxa kale oo uga baaqay halkan odayaashii gudidii 150 anagu wada kasto qaaraankeeda la keeno hawshada dhaqsan ka bilaabaynaa. inta ku keentaan qaaraanku bay ku xidhan tahay iyagana inay wadadii socoto. maalin buu yeelan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo qashinku maalin nadaafadda, maalintaas oo laga shaqeeyo dawladda hoose iyo dhammaan shanta shirkadoodba ay ka shaqeeyaan degmo iyo qashinkaas oo lala dagaalamo. waxaan halkan uga mahadnaqayaa cid kastoo qashinka nagala shaqeysay. waxaan u sheegayaa dadweynaha caasimadda ku nool in inta uu qashinku u jiro oo caafimaadku caafimaad darraduna ay 12 bishii 12aad waxaa si rasmi ah uga bilaabmay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa olole nadaafadeed. ololahaas oo insha Allah socon doona muddo dheer oo haddii alla idmo degmooyinka caasimadda oo dhan aan wada gaarsiin doono oo degmada maalin laga bilaabi doono. caasimaddu way ballaaratay, degsiimaduna maalinta ka dambaysa way sii kordhaysaa. waxaa loo baahan yahay dadweynuhu inay ka qayb qaataan ololaha nadaafadeed. uga bilaabmay olole kor loogu qaadayo nadaafadda iyo bilicda caasimadda, kaasi oo ay hogaaminayaan maamulkii gobolka, maamulkii caasimadda iyo waaxii ay khusaysay hawshani. sidoo kalena ay ka qayb qaadanayaan shirkadihii qashin ururinta iyo ganacsatada kolba eeriyada laga shaqeynayo. maanta degmada Ibraahim Koodbuur baan joognaa, waxa iyaguna si weyn uga qayb qaadanaya dadweynaha degan xaafadan iyo dad kamida mulkiilayaasha iskargooyinka iyo cagafyada. ololaha nadaafadeed ay bilaabeen mas'uuliyiinta gobolka Maroodijeex ayaa wuxuu imanayaa kadib markii madaxweyne ku-xigeenka Abdiraxmaan Saylici isagoo Boorama ku sugan uu sheegay in sanadkan markuu dhamaado lala wada xisaabtami doono dhammaan mas'uuliyiinta gobolada ee dawladda hoose, iyagoo lagala xisaabtami doono waxa ay bulshada ay mas'uulka u yihiin ay u qabteen.